Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada janaalka Dr. Xalana Care. Caawa waxaan ka hadli doonaa warbixinta COVID-19 ee Soomaaliya ee soo saartay Wasaaradda Caafimaadka ee Dowladda Soomaaliya. 2 Juun 2020 waxaa kiisaska Soomaaliya maanta laga helay 66 kiis ayaa laga helay. Banaadir waxaa laga helay 33 kiis. Somaliland waxaa laga helay 26 kiis. Puntland waxaa laga helay 7 kiis. Waxaa lab 42 kiis. Waxaa dhadig 24 kiis. Waxaa bogasho 19 kiis. Waxaa dhimasho eber. Maanta cidna kuma dhiman alxamdulillah. Tirada guud ee laga helay Soomaaliya waa 2089 kiis. Waxaa bogsatay guud ahaan 380. Waxaa dhimatay guud ahaan 76. Ilaahay naga badbaadiyo alxamdulillah. Fadlan la soco update-kii ugu dambeeyay Soomaaliya markasteeto. Fadlan subscribe saar, ha iloowin inaad like dhahdo, share, comment iyo asxaabta kale soo helaan. Waa mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.